howlgalladan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmooyinka Balcad iyo Afgooyo oo ka kala tirsan gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe isla markaana lagu sifeynayay maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii ay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ay soo gaartay cabasho ku aadan in bulshada ku nool deegaanadaasi ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka qaadayeen lacago baad ah oo ay ku sheegeen sakawaad. ciidamada xoogga dalka ayaa si luga ku galay tuulooyinka Buulo Barwaaqo, Dani Baalow iyo Basra oo dhinaca galbeed ugu beegan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaas oo iskaga carreen maleeshiyaadka Al-Shabaab iyagoo ka baqanaya awoodda ciidamada xoogga dalka kadib markii ay ka war heleen in ciidamada ay ku soo socdaan. waxaana howlgalkaasi hogaaminayay ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ugu horeeyo ammaanduulaha qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka General Maxamuud Maxamed Koronto. sidoo kale ciidamada xoogga dalka oo ka soo dhaqaaqay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa si nabad ah kula wareegay deegaanka Jumbaluul oo hoos tagta degmadaasi. General Cabdullaahi Cali Caanood abaanduulaha ciidanka xoogga dalka oo warbaahinta qaranka kula hadlay deegaanka Basro ayaa sheegay in ujeedooyinka laga leeyahay howlgalladaasi ay tahay in la isku furo wadada isku xirta degmooyinka Balcad iyo Afgooye. waxaan joognaa hadda magaalada Basra oo cadowga hore u qabsaday Al-Shabaab cadowga shacabka Soomaaliyeed waxaanan lagala wareegay shalayto 11kii shantii galabnimo. waxaan kaloo shalayta gacanta kaga dhignay tuulooyinka Daniga iyo tuulada la yiraahdo Buulo Barwaaqo. dhanka kale ciidamada xoogga dalka ee ka soo howlgalay degmada Afgooye, Jumbaluul iyo Baghdad bay kala wareegeen iyo Shariif Cabdinaasir beertiisa ay dhinac kaga jireen. cadowgii wuu cararay laakiin kooxa waxay ku harsan yihiin meelo aan ognahay oo cayiman. insha Allah waa uga daba tegaynaa maantana waa ka sifaynaa rabnaa maalmaha soo socda. xooggiisina wuxuu aaday meel aan anu ognahay oo saddex gobol xuduudood ah. ayagana waa uga daba tegaynaa insha Allah tacaala. waxaan rajaynaynaa mar dambe inaysan shacabka Soomaaliyeed ee deegaankan aysan dhimin iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. howlgalkan maanta aan sameynay wuxuu hordhac ka ahaa howlgalkii heer qaran ee la bilaabi lahaa. kaasna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa u diyaar garoobeen inay bilaabaan howlgalladan ciidamada xoogga dalka ay kala wareegeen maleeshiyaadka gobolkooda oo sii dhacay Al-Shabaab deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada Shabeellooyinka ayaa imaanaya kadib markii uu amray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in la qaado howlgallo qaybo ka mid ah gobolada dalka looga sifeynayo maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Maxamed Xasan Cali, idaacadda iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, deegaanka Basro, gobolka Shabeellada Dhexe.